taariikhdu waa dhidib ummadi dhowrata abida waa dhaxalka waagay tagaan laga dhitaystaayo oo ay dhashoodiyo bulshadu dheef ka dhigataay ha yeeshee dhigaalkiiyo qofkan dhaadka ku adkaynin dhaqsay uga dhumaysaa amaba looga dhacay habayaanan ka hor dhicine bar horta muuqaalkii la daawada lammiin keenyas fi keenya addaanqoon qoomiyadeenna aynu ka dhalannay oromo dir ah dad haba gumaysta haba kala qaybqaybiyo afaf kale iyo dhaqanno kalan ha lahaadeen qoomiyada oromo oo inta ugu badan ay dir tahay 3 jilib baa dir ah qoomiyada oromo marka guud ahaan laga yiraahdo ayaa dir ah oo ku jiro waliba madaxweyne direed u badan wayab Soomaaliya xaggan soconnaa gaan u soconnaa noo sheega qabiilkii waa kana maanta qaabkaana loo bedelay Itoobiya la keena maantana dalkii Soomaaliya sidan ayaa u dambeysay bal arag saddexda arrimood iyo tu afraad oo ah ra'iisul wasaaraha walaalkiina arsaba idin jooga walaalkiina hadalla uu yidhi oo maaragtay la isla dhaxqaadayo dadku si kala ay u fasirteen waa wiilkiini waa walaalkiini geeska Afrika oo dhan inaan isku daraaban damcaan Itoobiya arxan moodayo Soomaalian arag afaday digeen Soomaalian hoy arag maday qaxeen oriyaha kablamayo aqalada buray leedinka yar horeeyo tiknoolajiyada biyo ku filan baadi iyo balad bal leedin sameeyo arrimahaana ra'iisul wasaaraha waa kula talinana iyo Soomaaliya ayaa la soo gaarsiinaya koronto iyo biyo hamiga Itoobiyaanka dekada aad leedihiin baan wada leenahay oo maaragtay ka shaqaysanaynaa garabkaan isqabsanaynaa taana ka bixiya arintaas waanu garab taagana xadkeenuna waa xadkii Afrika ay wada socdayaashii laga rabay Soomaaliya inay badbaadiyaan oo dhaqanka iyo afka sinjiga iyo sawraca intaba inay dhowraan laga rabay waa kuwa saacadtumaya maanta Itoobiya